dhalinyarada badana wadankeeni waxa ka jira waxba kama waraysiin dadku badana waxay u maleeyaan waxaan ka hadlaynaa inay tahay wax pastiga oo la soo dhaafay ama wax khiyaali oo la isku eegaagama waa run way wax walba horteena yaalaan wadankeena waxa jooga 22 hay'adood wax ka badan baa jooga hay'ad walba wadankeena joogtana mission bay qaabilsan tahay ragga madaxda ah ee wadankeena ka shaqeeyana nin aan iyaga ka tala qaadan ma jiro dhalinyarada raba inay haday isku bedel sameeyaan ama wax inay wadankii ka qabtaan oo kaleeto inaad wax akhrisin aad bay muhiim u tahay wixii la soo dhaafay iyo waxa maanta inta la marayo hay'adahan hadafkooda ugu weyn ee wadankeena ay 30 sano ay ku hayaan ka badan 33 sano hadda sii maraysa ay ku hayaan wax kala ma ahan waxa weeye horta waa inaan ummad Soomaali yiraahdo aan bal helinba labo wax walbeeto oo wadankeena maanta hadii lagu hamiyo hay'ad baa u qaabilsan hay'adaha badankoodu waa sirdoon way oo Mareykanka ama Israa'iil ama waxa iskale Ingiriiska waa saddexdaas u kala qaybsan yihiin waxa kale waa wax iska daba socda way waxa maan wadan walba oo muslimana waa ka jiraan sababtay they are doing their own missions iyaga meesha suma joogaan in adiga ku caawiyaan sababtuna wax kale maan fiiriya wax ay Soomaaliya hadda u qabteen ma haysan waa may laakiin ogaada madaxweyne kasto oo Soomaaliya jooga ama mid maamul goboleedaado ama kan hogaaminaya ahaado mid aan meeshaas ka soo shaqeyn ma jiro markii halka lagu soo carbiyo ama lagu soo tababaro ba waxa loo dhiibaa xilka wadanka sababtuna wax kale maan haday beentay tahay kulli waxa madaxda Soomaaliya maanta ka talinayay waxaad fiirisaan waxay soo mareen ama waxay ka soo shaqeyn jireen kulli hay'adahan ay ahayn markii meesha la soo mariyo ba waxa loo dhiibaya xilka halkaana waxay ku soo baranayaan waxa la yiraahdo musuqa maanta ito hay'ad baa wuxuu dhiibaysaa $4,000 nimanka cadaanka ee sirdoonka way ogyihiin ninkan haday 10,000 ama 4,000 ama $40,000 u dhiibaan uusan dadkiisa waxa ugu qabaneen ee 100% u jeebka gashanay way ogyihiin waana waxay ku carbinayaan hadhowna waxay leeyihiin maxay shaqo fiican baa qabatay keep going billion laakiin alintu waa inay garato waxaani ma ahan wax hadda soo bilowday ma ahan waxaani waa wax ilaa 30 sano ilaa 33 sano ugu dambeysay ee soconayay weeye waxaana jirta maama ku jirta waxa la yiraahdo filimkan The Godfather waxa la yiraahdo maamadaas waxay oranaysaa marka ugu horeeyo waa inaad lacagta heshid marka lacagta heshid ka bacdi you can buy everything waxaad rabtid waa gadan ka markaas hadaa rabtid waxa gadanaysaa nimanka siyaasiyiinta hadaa rabtid waxa gadanaysaa nimanka ciidamada u shaqeeya hadaa rabtid waxa gadanaysaa tuuga adiga ku gooniyo ku shaqeysa hadaa rabtid waxa gadanaysaa waa xildhibaanada weeye hadaa rabtid waxa gadanaysaa wasiirada ra'iisul wasaaraha waxa rabtid baa gadanaysaa shaqaalaha cidii adiga aad u baahanto dhan baa gadanaysaa marka madaxda Soomaaliya joogta waxa ugu muhiimsan oo ay maanta fiirinayaan waa sida lacag ku helnaa way waana waxaan u yiri waxa dalka ay ka jeceliin waa lacagta heynaya sababtay lacagtu it will give them power awood bay siinaysaa soo marka dhalinyarada Soomaalida hadii aydan waxaan oo dhan waxba ka faahsan hadda ma jiro qof Soomaaliya oo waxa uu maleynayaa hay'adahani 22 hay'adood miyaa mise 23 hay'adood wax saas weeye oo wadankeena ka shaqeysa qof Soomaali oo daba galay oo waxa ay halka u joogaan garanaya ma jiro ana ka ayn maxay xuquuqdeena bilaadanka ilaalinayaan caafimaadkeena u fiican yihiin dalkeena noorayaan waxa soo dhan waa been waay wax ka jira ma jira waxay halka u jooga waxa weeye inaysan mid waxay la dagaalaysaa mid ciidankii la dagaalaysaa mid waxay la dagaalaysaa dadka wax soo saarkiisa la dagaalaysaa mid waxay la dagaalaysaa dadka fikirkiisa iyo aqoontiisa la dagaalaysaa mid waxay la dagaalaysaa dadka caafimaadkiisa la dagaalaysaa mid madaxdii bay kala laaluushaysaa oo aragteen hal nin Soomaaliya jooga oo xogayaha qaramada midoobay Soomaaliya jooga baa maalin walba goboleed aadiye iyagu iskuma imaanayaan sababta waa la kala xadida Soomaa haddaad isku timaadin booskina weynaysiin baa lagu yiri laakiin ninkan Hargeysa tagaya garow ka soo dagaya xamar baadiya wuxuu ka dagaya Kismaayo ka dagaya oo ka soo noqonaya baydhabo imaanaya soo laakiin waxaan hadii aydan fahmin ama raggan aan la fahmin siyaasadda ay wataan iyo cid ka dambaysa nin walba madaxana aydan hoos yimaada he must waa qasab way sababtay meesha IMF ku jirta WFP waa ku jirta soo waxa ku jirta UNICEF baa ku jirta waxa kale oo ku jirta UNHCR waa ku jirta soo kulligood ku jira hamid xataa waxa la sheegay corruption kama waxa la yiraahdo musuqmaasuq la dirta laakiin iyaga ama lacagta bixinaya musuqmaasuq si la diraysa marka waxaan oo kaleeto waxay ka mid tahay waxyaabaha dhalintu ay u baahan yihiin inay indhahooda ku furaan marka waxa la yiri markaad rabtid inaad wax burburisid ama aad rabtid wax inaad meel ka bedeshid
hoos haddaad tiraahdi waa ka bilaabaya aadan kor fiiri meesha koowaad haddaad tiraahdi tusalaan haddaa maantayto dabaq intaa soo geshay dabaqaasu yahay 4 fooq ama 5 biyaano ama 6 biyaano ama 7 biyaano kaleeto jaranjaro la leeyahay ma dhigi kadhid waxaan kasoo bilaabaya fooqa ugu sareeya ama biyaanada ugu sareysa kasoo bilaabaya ma dhigi kadhid ko waa inaad fiirisid meesha joogtid ka bacdi maxaa kaa koreeya intee dabaq weeye marka si aad u fiirisid dee waxaad bay kuu noqonaysaa Soomaa wax adiga aad filaysid oo kaa hor imaan kara marka waxaan u leeyahay dhalinteena marar badan waa ku soo celceliyay dad soo jeeda ma ahan dhalinta Soomaalida ay wax soo jeed waxaan la hor keenay ee khiyaaliga noloshooda maanta ay ku ciyaaraya ama baabada ka dhigay beerun waa haysaday xataa hay'adahan waxay fahmeen qabiilada Soomaalida si u kala baxbaxaan way la garateen Soomaa because waxay ku dheereeyaan way si u kala baxbaxaan bay fahmeen iyo sida isku xasdaan oo isku nacibiin bay fahmeen marka maalin walba ay maqlaysan dagaal heel baa dhacay ka dambeey dagaal kala dhacay iyaga ka dambeey sababtoo waa missionkooda waa ku qasab inay sameeyaan si ay u noolaadaan way la garateen Soomaa waa ku qasab inay sidaas sameeyaan si ay u noolaadaan maalin waxaa jira video aan soo dhigay oo yar macallin la yiraahdo oo ka hadlay muxuu yiri dadka Yurub ku nooli noloshooda way u dagaalameen sida Afrika ugu meestaan soo laakiin haddii ay Yurub ku noolaan lahaayeen waa hore dunida ka tirtirmay meesha ay iska joogeen haddii waqtiga joogi lahaayeen buu yiri dunidu waa ma aqbasheen soo Afrikaanku marka meesha ay joogaan bay aqbaleen meesha ay wax kale ma jiraan meesha ay taagan yihiin oo bay aqbaleen waxa la yiraahdo hard work ama waxa la yiraahdo fikir cusub ma jiraan tada kale ayadan xataa waxa jirta daawooyinka ay bixinayaan badan awaad aragteen dadka Soomaalida marka Soomaaliya joogto dad ma ahan maskaxdooda ay fadhida ma aha ala garateen Soomaa dad yani fikirkoodu de fasiix yahay ama uu yahay fikir hadaad maanta aad la hadasho fikir aad ku fakari kado ama aad ka dheehan kado inuu yahay fikir macquul gal ma aha nin walbeeto wuxuu un loo sheegay aniguna badan waa fiiriyay oo waxa jira dadka Soomaalida malaha waxaan la yiraahdaa ADHD ga miyaa ku badan oo mar walbeeto waa dad jalaanada maanta wax ka hadashay wax kale isku dayeen oo kale waxaan la yaabanahay weeye badana markaad qofka Soomaaliga wax kala hadasho wuxuu isku dayay inuu wax kala ka hadlo isku dayay wixii aad ka hadlayso maahan wax kale tiinu ka hadlo cudurkaasna ADHD waa leeyahay oo qofku maahan qof hal meel ku focus gareyn kara ma mar walbeeto waxba kala hadlaysa wixii waxaan ahayn buu ka hadlay marka wixii kala hadashid hadana wax kale ka hadlay marka waxa kala hadashidna wax kale ka sii hadlay marka hay'adahani waxay kamid tahay barbaarta ubadka markii la soo korinayo waxaad maqashaan badana talaal baa la sameeynaya ama wax la sameeynaya taasna nidaam aad u weyn bay ka geystaan oo dadka Soomaalida waxa ay cabayaan ama waxa lagu durayo ama wax afka lagu shubayo ma garanayaan marka hay'adahan dhibaatooyinka ugu weyn oo wadankeena ka jira iyaga kamid ah soo laakiin hadaadan waxaan fahmin nimanka Soomaalida ee suudadka loo soo xiray hay'adaha intay suudadka u soo xireen ay xilka u soo wada dhigto waxa la waxa baarlamaanka ka shaqeeyo waxana ka soo shaqeeyay waxa wasiirada waxana ka soo shaqeeyay waxa ninka maanta ra'iisul wasaaraha waxana ka soo shaqeeyay madaxweynuhu maanta waxa maamul goboleedyada dhan iyaga ka shaqeeya soo sababta meesha lagu soo carabiyo waa Soomaaliya system kama jiro waxa hor istaagi kara kama jiro marka qofka Soomaaliga ee maanta intuu soo istaago ku oranayo dawlad baan leenahay 23 hay'adood oo ajaanib wadankaaga jooga waa maxay marka dawladda sheeganayso ama horumarka gaarto waa maxay marka aqligu ha shaqeeyo dhalintuna waxaan leeyahay waxyaabo badan abaare si u fahmaan waxa ka qarso mar walbeeto muhiimadu waa inaad fahantiin waxa qarso wax banaanka yaalo qabiilku banaanku yaala waa garanayna wuxuu yahay iyo qornimadiis waa garanayna Soomaalida khiyaaligeeda wuxuu ku nool yahay waa garanay wax banaanka yaalo laakiin waxba ka dambeeya soo wixii banaanka yaalaba waxba ka dambeeya marka wixii ka dambeeyay hadii aan la fahmin diyaarintu waxay noqonaysaa mar walbeeto mid dib iskugu soo noqnoqoto mid wax bilaabaya mid kale loo keenaya ogaadana ninka maanta inta Soomaaliya la raba inuu wax ka geysto ama horumar ka sameeyo ifka loogu nacibiya mid kale walaalkiisa in adeerkiisa loo isticmaalaya kaasana lacag la siinaya hub la siinaya waxa la leeyahay inay la dirirtid wala diriraya soo dadka ugu sheekeynaya maxay inuu ninkaan horumar u soo wado ugu sheekeynay waxaan hore aan u aragnay waana wax dhacay weey ogaadana qofka Soomaaliga Soomaaliga waxa ugu muhiimsan oo laga rabo waa inuu waxaanu kala ogaado